mid intay iyo mid walba waa dadka maanta wax baranaya ee Somaliland chance-ka warwaanu qaran waradan kala dambeyn jirin oo askari jirin cid jaamacada ma gashay haddii maamul jirin oo wasaaradda waxbarasho jirteen cid ma kala dambeyseen oo jaamacada lama gaarin haddaan dalka loo aqoonta ku shaqaynayn idinku maydu fadhideen haddii ka ganacsanaya aan la ilaalin hantidiisa iyo qofka iyo gaadiidka aan systemka dowladdu ilaalinayn maynan joogneen hor waxaan xusuustaa maalin maalmaha ka mida yaanu berbere ka soo baxay waa 1992 waxaanu ka nimid Laascaano waxaana wata garaad Cabdiqani 45 point ayaa umato iyo berbere inta u dhaxaysa yaalay markii aanu mari kari weynay dib baan ugu noqonnay Ibraahim ayaa dib noo soo bixiyey hadda halkaas dalka laga soo dhaqaajay halkaa ayaa dalka laga soo dhaqaajay dhalinyarada qaarmaayo ku odhanaya dadku wax ma qaban maxaa la qabtay Somaliland qaar baa idinku odhan waqti ma hayo aan taariikhda laga sheekeeyo laakiin waan idin xusuusinaya waayaha iyo waqtiguna qofka iyaga xukuma waxaan idinkula dardaarmaya inaynu noqonno ummad is-aqoonsata oo garta kadib wax u qabanaya iyo ka hore u soconaya waxaynu rabnaa waddanku noqdo mid hore u soco waxaa ila badanaya inaynu taageero qofka hore u soco